Somali Network Group SNG waxay idiin soo gudbinaysaa qaybteeda waxbarashada IT-ga ee ku aadan cilmiga networking-ka casharo isugu jira maqal iyo muuqaal iyo qoraal intaba ayadoo lagu sharxi doono af Soomaali. ujeedooyinka SNG qaybta waxbarashada SNG waxay idiin soo gudbinaysaa cilmiga networking-ka kuwaas oo isugu jira maqal muuqaal iyo qoraal taas ay ujeedadeedu tahay in ay ka caawiso da'yarta u helan in ay sare u qaadaan aqoontooda ku aadan cilmiga IT-ga qaybtiisa networking-ka ayadoo ay ku baranayaan afkooda hooyo af Soomaali. wax soo saarka SNG qaybta waxbarashada SNG waxay soo saaraysaa dhammaan cilmiga networking-ka iyo qaybaha la xiriira oo faahfaahsan oo ay idinku soo diyaarinayso af Soomaali ayagoo isugu jira maqal muuqaal iyo qoraal intaba waxaana ka mid ahaan doona Microsoft Certified Information Technology Profession MCITB ama MCSE iyada oo la isticmaali doono practicalka software suura gelin kara in uu arday walba practicalada oo dhan uu ku suubiyo laptopkiisa ama computerkiisa asoo isticmaalaya softwarekaas la yiraahdo VMware Workstation waa software sahlaya in dhammaan practicalka la xiriira MCITB-da in uu ku sameeyo single computer ama single laptop. Cisco Certified Network Associate CCNA iyada oo aan isticmaali doona practicalka softwareka la yiraahdo Cisco Packet Tracer version 5.3 kaasoo suurta gelinaya dhammaan practicalka loo baahan yahay CCNA-da in lagu sameeyo in uu qofku hal computer ama hal laptop uu ku sameeyo asagoo softwarekaas uu u sahlayo in uu saacad kasta iyo meel kasta uu heli karo practical ku filan sida xilliga saxda ah ama real time-ka. Cisco Certified Network Profession CCNB ayadoo la isticmaalayo softwareka la yiraahdo GNStream oo ah software suura gelin kara dhammaan practicalka la xiriira CCNB-da qaybaheeda kala duwan hadday ahaan lahayd security-ga hadday ahaan lahayd voice-ka softwarekan wuxuu sahlayaa in uu ardaygu sameeyo practical xilli kasta suurtagal ahayn inuu ardaygu mar walba helo ama uu dhex joogo lab qalabaysan. kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Badi oo idiin soo jeedinayay waxqabadka SNG Xamuud Cabdi Dacar oo asna ka caawinayay qaybta farsamada.